بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين بلشدة الصومالية ملك سعد جوكتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waa maalin taariikhi bulshada Soomaaliyeed waayadii soo maray maalmihii ugu wanaagsanaa maalin kamida waaye laba madaxweyne ayaa xilkiisa nabad ah ku kala wareegtay waa taariikh kale ee ummadda Soomaaliyeed loo dhigayo oo ay kaga gadisan tahay meelo badan oo dunida kamida villa Soomaaliya waan dhihi jiray waan dhahayaa waa guriga ugu qiimaha badan ee dalka Soomaaliya ka dhisan guriyo badan ayaa jiraan laakiin kaas ugu qiimaha badan waxa uu qiimihiisu ka imaanaya waa koob waa mid la wada leeyahay waa laba waa mid la isu badbadalo dadka Soomaalida ay isu badbadalaan waa saddexo waa mid lagu gaaro go'aanada uu qiimaha badan ee taabanayo aayaha iyo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan wax ka iraahdo madaxweynaha xilkii ka dagay iyo madaxweynaha xilka soo fuulay madaxweynaha xilka ka dagay waxaan leeyahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aan soo wada shaqeynay oo saaxiibkay ah oo madaxweynahayga ah oo xilka ka dagay waxaan leeyahay waxaan ku xasuusanaynaa wax kasta oo wanaag oo aad sameysay bulshada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay madaxweynaha ku xasuusaan kuna qadariyaan wax kasta oo wanaag ah oo uu soo sameeyay oo xilligiisa dhacay waayo cinwaan asaga ayaa u ahaa wixii guulihii dhacay iyo guul darrada dhacday intaba waxaan rabaa inaan madaxweynaha loo tiirin abaan xisaab taariikheed loo furin oo meesha lagu soo afmeero xilli xukunkiisi lana yiraahdo madaxweyne waad ku mahadsan tahay muddada aad soo shaqeynaysay madaxweynaha cusub waxaan leeyahay xilka aad dhabarka u ridato Allah ku garab galo waa lagu bulshada Soomaaliyeed waxay ahaan weyn tahay inaad ka dhaweey doonto ballanqaadyadaadii bulshada Soomaaliyeed waxaa farxad gelin doono markay arkaan adiga iyo saaxiibadaadii ka horeeyay oo isgarab taagan oo munaasabado badan ka soo wada muuqdo oo nabad ah oo ka arinsanayo mararka qaarkood dalka iyo dadka waxa uu danta ah runtii Soomaaliya 1960kii waxay caan ku ahayd iyo wixii ka dambeeyay qorisi dhiib nabad ah oo iyo isdoorasho xukunkan wareegana waa wax caafimaad Soomaaliya u ah ugu dambeyn waxaan leeyahay bulshada Soomaaliya waa kale waa taariikh kale oo idin qormayso in wareejiyo si nabad uu ku wareejiyo soo la wareeguhuna oo si nabad kula wareego iyadoo waaltinimo iyo wanaag ay jiraan jiilasha dambe iyo facayaasha dambena waxaan rajaynayaa inay arrinkaas ka shidaal qaadan doonaan waa guul Soomaaliyeed madaxweynaha hore waa mahadsan yahay madaxweynaha cusub waa soo dhaweynaa bulshada Soomaaliyeed kan dambe waa inay garab istaagto kii hore ay qadariso ay xurmayso oo lahaado maamuus iyo maqaam madaxweyne hore waxaan rajaynayaa madaxweynaha dambe inuu arrinkaasi aad iyo aad maanka ugu hayo maalin guuleed baan leeyahay waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaah